munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga xiriirka kubadda cagta jaaliyadda magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa lagu soo bandhigay isku aadka kooxaha jaaliyadda koobka General Daawud isla markaana loogu qoratuuriyay 22 kooxood kubadda cagta ayaa lagu qabtay magaalada Jidda xafladaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen guddiga tawciyadda jaaliyadda Jidda waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga tawciyadda Sheekh Cabdiqaadir Aqi iyo gudoomiye ku-xigeenka tawciyadda waxaana ay ka warameen doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo isdhexgalka bulshada waxayna sheegeen mahad iskale subhanahu wa ta'ala mahada fi aad u badan oo la soo koobi karaynin dhalinyaro waxa weeye waa halbowlihii ummadda waa sharayaankii ama bartii ummaddu ay ka dhaqaaqaysay ummad waxaa laga eegaa dhallinyaradoodu haddii ay toosan yihiin oo ku toosan yihiin jidka ilaahay u jeexay oo ay ka shaqaynayaan khadamaadka ummadooda iyo mujtamacooda iyo naftooda iyo waddankooda dhallinyaradaasi waa dhallinyaro jirta wey haddii cagsi daalika ay u shaqaynayaanna oo diintoodii iyo mujtamacoodii iyo ummadoodii ayaan u danaynaynin dhalinyaradaasi waxa weeye waa dhalinyaro loo baqoo loo yaabo walaalayaal fursadan aadka u qiimaha badan leh oo ah xafladan lagu furayo tartankii General Daawud ilaahay ha u naxariistee oo ka mid ah rumuusta ummadda Soomaaliyeed ay leedahay xafladan qiimaha badan leh oo maaragtay ay isku soo abaabuleen ragga qiimaha badan leh oo hogaaminayo koobka maaragtay iyo sportiska kubadda cagta sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga xiriirka kubadda cagta jaaliyadda magaalada Jidda mudane Maxamed Awees waxaana hadalkiisii ka mid ahaa ما هلكا إن إذا كبيرو ونرجع للقضاء والوانا وصلنا وهذا شيء إن شاء الله إن هي شيء كريم حبك عن عيال لهين حبك الأسبوع كلها يهوكي ورتوه كلها وحنا أدي أقول بعدين كمان بعد أسبوع كمان شان كان يوتو يسوي ماله نقطة وسط حلوات الكوكب وحنا إذا كوخ مدينة إستان الواجبته وسط حلوات الكوكب waxaan u kala ciyaari doonaa ama isu arki doonaa kooxaha 23 koox 3 group wuxuu noqon doonaa 6 groupna wuxuu noqon doonaa 5 group kasta waxaa laga rabaa 2 habku qoltuur ku dhici doonaa wuxuu noqon doonaa sidatan marka hore kooxda koobka haysata oo aan u tartamayno hadda koobka General Daawud waa kooxda Jubba Always weli waxaan sheegaynaa kooxda Jubba Always inay u diyaar garoobaan furitaanka ciyaarta koobka General Daawud halkaan ugu qabanqaabiyey koobkii ugu horeeyey oo la dhihi jiray midnimo waxaana ka qayb galeen 8 kooxood wixii markaa ka dambeeyey tartamada Soomaaliya sidoo u furmeen noqday haddana maanta ilaahay mahadiisa ah 8 koox meeshay wax ku bilaabeen inay caawa 22 kooxood diyaar u noqdaan inay ka qayb galaan koobka General Daawud qoratuurkiisa taasna ilaahay mahadiisa guddiga kooxaha وكل الحياة حريرك وقطع عفا هي كوحة كور والله إني بقى تحدي ما تقول لا كورات ماشي في تختمان إني كور كليه وثاني كعياله توصيص على الدوران محمد إسماعيل محمود أحمد عرب تلفزيون كقرن كصومالية جدة سعودية أرابيا.